haddaba waa goorma taariikhda ay qalgelayaan cabdifataax albakri iyo sidoo kale habi xilwa. Saacadihaynu kasoo gudubnay baraha bulshada waxaa si aada u qabsaday sawiro kala duwan oo la arkaya habi oo aada u dhala cadaynaysa islamarkaana u muuqato mid u diyaargaroobaysa xafladda meherkeeda oo dhowaan la filayo in ay ka dhacdo magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliyeed. habi iyo wiil lagu magacaabay cabdifataax islamarkaana kamid ah fanaaniinta soomaaliyeed ee qurbaha ka yimid gaar ahaana dalka sweden ayaa in dhawaalaba aada isaga agdhowaa islamarkaana xiriirkooda marka uu banaanka yimid kadib ay soo shacsaareen in xiriirkooda uu yahay mid salka ku hayo mustaqbal iyo guriyagleelid iyo in gebi ahaanba ay noqdaan lamaane midoobay. haddaba habi ayaa laga dheehan karay farxad iyo reenreen iyadoo dhowaanahanba ay aada isaga dhawaayeen oo ay hoosta kaga jirtay xaajigeeda cusub cabdifataax albakri. cabdifataax albakri ayaa waxa uu dib ugu soo noqday magaalada muqdisho ee xarunta soomaaliyeed xarunta dalka soomaaliya aan iraahde taniya kadib markii uu isagu dib ugu laabtay dalka sweden maalmo kooban oo uu joogay magaalada muqdisho. haddana safar deg deg ayuu ku yimid waxaana safarkan sida xogaha iyo wararka aynu ku helayno uu la xiriiray booqasho iyo sidoo kale isbarasho ehelka iyo reerka iyo familka gabadha lagu magacaabo habi uu la kulmayay uguna kurgelayay reerkooda iyadoo labada dhinacba ay isbaranayeen islamar ahaantana arrinta ugu weyneeye iminka la sugayo dadkuna ay u wada fadhiyaan ay noqon karto meherka iyadoo qabanqaabada iminka ay ku jirtay. haddaba fiidiyo kala duwan oo baraha bulshada qabsaday saacadihaynu kasoo gudubnay ee dadku si aada uga falceliyeen dhinaca kalena sawirada habi ayay dadku falcelin xoogan ku sameynayeen sida muuqatana habi waxa ay ku jirtay isdiyaarin iyo diyaargarow ku aadan xafladda meherkeeda waxaana la arkay iyadoo goobaha markaasi inta badan qurxinta dumarka aada ugu sugan waqti badanna halkaasi ku qaadanaysa sida muuqatana waxa ay raadinaysaa cabirkeeda dharka iyadu ay ugu talagashay in maalinka arooska ay xidhato inkasta oo si hordhacaan idinkugu sheegi doono in meherka uu dhici karo laga yaabo dabeeqada sanadkan ka hor 2022 bisha December ee nagu soo foodlay ee aakhirka sanadka maadaama gabagabadii aynu mareyno ayay iyagu ku heshiiyeen kuna ballameen in arooskooda uu dhaco ka hor inta uusan sanadka dhammaan. haddaba dhowaan markii dadku ay si aada uga falceliyeen habi iyo sidoo kale seegeeda ama jaceylkeeda cusub xaajigeeda la oran karo waa seegeeda mustaqbalka cabdifataax albakri kaasoo dib ugu yimid mar kale bil ama isbuucyo kooban oo dalka dibaddiisa kaga maqnaa waxaana la arkayay fiidiyo ay iskala soo muuqdeen oo iyagu ay ku sugnaayeen afaafka hore masjid ku yaala magaalada muqdisho halkaasina sawiro kala duwan oo aada u qurux badan oo romantic ah ay ku wada qaateen iyaga oo dad badan dadka baraha bulshada aada kaga yaabsaday sawirada iyo sidoo kale fiidiyooyada talantaaliska ay si wada jira iyagu ay uga soo muuqanayeen dhinacyo kala gedsanna ay diiradda ku saarayeen fiidiyooyadaasi. haddaba habi ayaa dhowaanahanba aada markaasi ugu badneen dhinaca marka la ego tiktoka inkastoo instagram-ka si maalinlaha ay iyadu halkaasi usoo dhigto sawiro iyo fiidiyoyo kala duwan oo dadka ay ku maaweeliso shucuurteeda iyo dareenkeedana dadka ay ugu soo bandhigto iyo halka ay wax u marayaan iyadu hase yeeshee haddana xiliyadii hore waxay ahayd gabar iyadu koox markaasi dhalinyaro ah oo reer muqdisho ah dhexda kaga jirtay muuqaalo kala duwan oo madadaalo ah ee iskula soo bandhigi jireen barta tiktoka wada shaqayntii ayaa waxaa leeyahay way nusqaantay oo kadib markii habi ay garabkeeda ama garabkooda ay ka baxday dhalintii ay inta badan wax isla sameyn jireen intooda badan ay ahayeen dad muuqaalo kala duwan ay ku wada sameyn jireen gaar ahaana barta tiktoka dadkuna ay halkaasi inta badan ay ku maaweelin jireen. habi waxa ay aada isaga agdhawaayeen ninka lagu magacaabo aan iraahda jeste sidoo kale qaar kamid a dhalinyarada kale iyaguna saaxiib ka dhow ay ahayeen oo la oran karo waqti ayay wada qaateen oo xitaa xiriir jacayl ayaa labadoodu dhex maray. waxaa kamid ah cabdulaahi kashka oo la sheegay inuu ka hinaasayba marka ay iyadu dhabarka aadisay oo u janjartay dhinaca inanka cusub ee iminka xiriirka ay la sameynayso oo la sheegayo in guurkeeda dhowaan lagu wada in uu ka dhaco magaalada muqdisho. marka habi
si kooban ayaynu u eegaynay qaababka gadgadoonka dhanka nolosheeda waxyaabihii ugu waaweynaa ee iyadu kusoo kordhayay iyo sidoo kale sida baraha bulshadu ay ugu soo shacbaxday muddooyinka ugu dambeeyey hadalhayn badanna ay iyadu ku muteysatay dhinaca social mediaha tallaabo tallaabo taaka taaka dadka ay ula socdeen nolosheeda ayna doonayeen wax badan inay uga ogaadaan dhinaca arrimaha guurkeeda iyo waxyaabaha markaas xiriirkeeda ku qotomo soomaalidu waxay tiraahdaa wixii la sheega run ahaantii banaanka unbay mar yimaadaan oo wixii la qariyo qurun baa ka dhexeeya qurun baa ku jira soomaalidu sidaas ayay ku mahmaadaa waana xaqiiqdii runtii social mediaha waxyaabaha ugu waaweyn ee dadka inta badan caanka ka ah social media haddii aan noqon lahayn twitterka tiktoka aaladan loo yaqaano youtube-ka iyo aaladaha kale culayska ugu weyn iyagu ay la daala dhacayaan iyo caqabada ugu weyn ee noloshooda soo wajahda waxaa ka mid ah in privacy waxaa loo yaqaano oo ah in noloshooda ay public tahay oo qarsoodi aysan lahayn oo aynan ahayn nolol private ah wax walba iyagu lasoo gudboonaadana dadku ay aada ula soconayaan waana tan ugu waaweyne inta badan ay ka cawdaan marka social media la yimaado oo wax laga weydiiyo haye heblaayo maxaa kugu daran ma jeclaan lahayd wiil social media ku jira inaa shukaansato maxay tahay arrinta kugu yaabka badan ama kugu naxdinta badan ee ku qabsatay intii aad social media isticmaalaysa waxyaaba noocaas oo kale ah dad iyagu badigoob waqti badanna gelinaya in xogo kala duwan macluumaadkaaga shakhsiyadeed ay gacanta ku dhigaan si ay u baahiyaan maalmahan caadi ayay noqotay faariyadii ayaa soo batay faar waxaa loo yaqaano faar kudhigliyaashu ay soo bateen oo waxa ay dibumlecsi ku sameynayaan noloshan qofka noloshiisa hore nolosha iminka uu ku jiro qaladaadka u galay hadaladii kala duwanaa ee ka dhacay haddii ay noqon lahayd gef ama qalad ama hadallo iskhilaafsan oo isburinayo qofka uu ku hadlay oo markiiba social media lasoo dhexdhigayo waana caqabada iminka ay iyagu maareen la yihiin dadka caanka ee isticmaalo baraha kala duwan ee social mediaha haddaba happy waxaan u rajeynaynaa in kadib marka uu guurkeeda dhaco nolosheeda kule mid private ay noqon doonto sida markaasi ay ka muuqataba iminka saygeeda iyaduba iminka aynan jirin meel ay ku faahfaahiyeen guurkooda iyo waxyaabo lamid a laakiin ay jirto dhowr siyaabood oo ay uga hadleen xiriirkooda iyo inuu wax ka dhexeeyo inayin dad lamaana isjukaansanaya arrimo noocaas oo kale ah waa hagaag daawadayaal waad ku mahadsantihiin muuqaalkan oo dhammaystiran muuqaalkiisa xiga ayana waxaan iskugu soo gudbin doonaa xogo faahfaahsan oo aanu kaga soo gudbin doono dhinaca lamaanayaasha soomaaliyeed haddii rabbi raali ka noqdo laagaree muuqaalkan ka mid noqo dadka inagu soo biiraya si maalinlaha sidoo kale la wadaaga asxaabtaada muuqaalkan si dad badan aynu u hanano fadlan gambaleelka furo adiguna si aad u noqoto daawadaha koowaad gambaleelka furo rukumo janalka hel macluumaadka halkan aan si maalinla ah aan ugu soo gudbina dadweynaha waad ku mahadsantihiin